gudoomiyaha cusub ee dhawaan madaxweynaha Soomaaliland uu soo magacaabay gobolka Saaxil Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid ayaa maanta waxa si ballaaran loogu soo dhaweeyay deegaanada u dhaxeeya Berbera iyo sidoo kale Hargeysa waxaana tuulooyinka iyo degmooyinka u dhaxeeya gobolada Saaxil iyo Murudijeex halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo ruuxaya caleemo qoyan oo ay ku soo dhaweynayaan gudoomiyaha cusub ee gobolka Saaxil Salaadeen Cuqaal maamulka degmada Berbera maamulka gobolka Saaxil maariyaha dekedaha maamulka hamaha kaydka shidaalka iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen barasaabka markii ay soo dhaweyntaasi soo dhamaatay ayaa barasaabka cusub waxa lagu qaabilay xarunta madaxtooyada ee magaalada Berbera waxaana halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin iyo sidoo kale cuqaal waxaana si weyn u soo dhaweeyeen gudoomiyaha cusub iyagoo siina sabootiyay gudoomiyihii hore gudoomiyihii xilka wareejinayay gudoomiyihii cusbaa iyo saraakiil kale ka soo jeeda deegaanka Saylac oo iyaguna la socda barasaabka cusub halkan waanu idinku soo dhaweynaynaa magaaladani waa magaaladiini kulli halkan galabta waxaanu ku sagootiyeynaa gudoomiyihii qaaliga ahaa Maxamed Daahir oo muddadii uu nala joogay taariikhdu xusi doonto waxa kale aan soo dhaweynaynaa gudoomiye Fariid oo isaguna ah wasiirkii hore ee cadaaladda iyo gaashaanigaba gudoomiye soo dhawow gobolka waa gobolkaagii bele ma jirto gudoomiyaha maanta xilka ka digayna runtii nin odayo oo hayino oo xilal badan soo qabtay buu ahaa isagana insha Allah taala si mac salaameyn doona way ducayn doona wanaagsan nolosha shaqeeyay intii uu joogay mar labaad waxaan soo dhaweynayaa gudoomiye Cabdiqani Maxamuud Caateeye oo ah kamid ah gobolka Saaxil dadka gobolka Saaxil ka soo jeeda waxaan leenahay mar labaad ku soo dhawow gudoomiyahana cusub ee loo soo magacaabay gobolka Saaxil gacmo furan baan leenahay ku soo dhawow sidoo kale waxaanu sabootiyeynaa gudoomiyahii hore qaaliga ahaa Abdul Gaafane kaasoo nin sida dadka ka maqraati kaceena nin wanaagsan oo sharaf u helo karaamaha barlabaadka waxaan soo dhaweynayaa maxay hayday gudoomiyaha cusub ee maxay hayday Cabdiqani Maxamuud Caateeye waxaan ku leeyahay ku soo dhawow gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera si kaliya laabo qalbi furan ugu soo dhawow anigu waxaan la socday gudoomiyaha cusub ee hadan si fiican baad noo soo dhaweyseen kalgacal baad nagu abuurteen intaa waan gartay ninka laga tirinayana abtaanu ahoo ina taydii ba dhashay raggu labadaba ani way simeeyeen kan aad waxaan uga hambalyeelayaa gobolkii Saaxil degmadii Berbera dhammaan mas'uuliyiintii la soo dhaweysay ee sida heer qaran loo soo dhaweysay maanta waxaan dareemayaa hadalkii cigaaliyay Berberi waa mara xariira qiyaastii way liga muuqataa gudoomiyaha cusubna waa soo dhaweynaa gudoomiye ku soo dhaw magaalada Berbera iyo maamulkeeda iyo duqeydeeda oo ah dad tiin weega maanta waxaynu magaalada Berbera caasimadda gobolka Saaxil ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub ee gobolka mudane Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid oo aynu leenahay kulli xafladii xil wareejintu waa berri hadalku waa berri Berbera ku soo dhawow ciisuhu waxay yiraahdaan ciise waa ciise ninna caara ma dheera waxaan leeyahay Cabdiqani uu meeshani waa Berbera reer Berbera ninna caara ma dheera oo aad ugu mahadnaqayaa shacabweynaha gobolka Saaxil iyo dadweynaha reer Berbera sida ay u soo dhaweeyeen iyo sida ay kaliya laab u qaabileen gudoomiye ku soo dhawow baan ku leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa kaaga baryaynaa xilka iyo mas'uuliyadda maanta gudoomiye hore xilku waa ka degay maanta adoo ku fuulay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sakhro gudoomiye dadka soo baxay ee maanta aad arkaysay ma jirin cid la soo abaabulay xilli duhuray ahayd xilli dadku nasanayeen bay ahayd intii maqashay gudoomiye cusub baa imanaya way soo baxeen insha Allah waxaan rajaynaynaa filashada dadku sida ay ku soo dhaweeyeen ka filayaan inaad noqoto waan ku aamin qaba haddii la yiraahdo dadka reer Berbera ama reer Saaxil waa dad ku mashquulsan danahooda ku mashquulsan yihiin dhanbay wada jeedaan waxa tahay muxuu ahaa nin nasiib leh maanta haddii la yiraahdo dadka xilka u qabanaysaay waxa weeyaan insha Allah mar dambe aynu ka shaqeyn doonaa anu waxaan aad ugu mahadnaqayaa sidaan filaysi ka badan in la soo dhaweeyay oo shacabweynaha gobolka Saaxil si qalbi furan oo walaalnimo ah oo ballaaran oo anigu fileen ay soo dhaweeyeen oo aad moodaysaa heer madaxweyneba inay igu soo dhaweeyeen aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan waxaan rajaynayaa insha Allah mahadnaqaygaasi inuu dhammaan gobolka Saaxil oo dhan u gaadho haddii la shacabweyniisa anna waxaan filayaa insha Allah sida uu sheegay barasaabkii hore
ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu horta igu asturo filashada iga filayaana inaan aad wax ugula qabto. cabdirasaaq qaasin telefishinka saab berbera.